السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سؤال بعد أصحاب تاني أن جعلناهي أو مركز طن وحرين كان على النعيم استديو يدار خير ميديا. فضلا المقال كان هذا كيش غيري waxaa jiray nin xaabada qoryaha guran jiray wuxuu dhalay ilmo yar wuxuuna haystay ayuu haystay ninkan wuxuu tagi jiray duurka ayuu tagi jiray wuxuu bixi jiray arooti ayuu bixi jiray wuxuu soo laaban jiray qoraxda markay dhacdo maalimaha kamid ah asagoo duurka jooga wuxuu maqlay eygii oo qaylinayo runtii aad buu u naxay wuu soo orday markuu soo orday oo imaado guriga wuxuu arkay eygii oo afkiisa dhiig ka qulqulaya asigoo waxba hubsanin ayuu ficil xun ku dhaqaaqay. Ilaahay subxaanahu wa ta'aala quraanka wuxuu ku leeyahay yaa ayuha alladhiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu. ninkii wax muu hubsanin asagoo waxba hubsanin ayuu ficil xun sameeyay. wuxuu soo qaatay miishaar ayuu soo qaatay yeyga ayuu kurka ka jaray naftiisa iyo shaydaanka wuxuu ugu sheekeeyay yeyga wuxuu cunay caruurta ayuu cunay wuxuu galay guriga ayuu galay wuxuu arkay caruurtiisii oo sariirta korka ku ciyaarayaan dhinaca kale ayuu fiiray wuxuu arkay aabeeso weyn. hubsima hal baa lasista eygu wuxuu ilmihiisa ka badbaadiyay abeeso cuni lahayd waxaanu la caayay farxad uu islahaa ha ku mahadnaqo ninkii xaboolaha ahaa laakiinse hubsima la'aan awgeed isagii ayay galaaftay inuu naftiisa ku waayo miskiin. haddaba qisadan waxaa laga cibro qaadan karaa inaad ku degdegin markay wax kugu dhacaan ama aad la kulanto oo aad hubsato. waxaa kaloo laga cibro qaadan karaa inaadan ku degdegin dad la saaxiibka oo aadan eegin qowlkiisa iyo oraahdiisa kaliya ee aad eegto ficilkiisa iyo daacadnimadiisa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir sina sheegaree qisadan oo u sheegaree asxaabta kala sufi ay uga faa'iideystaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.